fiidiyogeena maanta. 2013 maalin ku jirta dalka Lubnaan tuulo ku taala ayaa aroortii hore waxa gurigooda ka jarmaaday inaan la yiraahdo Maxamuud asagoo qaatay qori AK47 ah oo uu lahaa una dhaqaaqay dhanka kayn ay tuuladoodu dhabarka ku haysay hadii uu humaagiisiiba ku dhex qarqoomay kayntii miriqdiis oo dambe lama arag waxay reerkii sugaan inankii inuu soo quraac doonto ma uunan iman qadadii baa lala sugay sidoo kalena ma uunan iman xaalku markuu halka garaacay ayay hooyadii iyo aabihiiba walwaleen markaasay markiiba xarunta booliska iska xaadiriyeen ay sheegeen in inankoodii uu maqan yahay waa intee jir baa la yiri inankii oo aabihiis baa soo booday oo yiri waa 33 jir maxaa 33 jir u baaraysan baa la yiri oo guriga ku dhex fariisiyay waliba walku hal qaadu doono yeelkii maya buu yiri warsaam ma ahan oo inanka hadii laga waramay waa nin reer leh oo reerkooda laakiin la degan gurigoodii kama tagin oo aabihii kama hawl fududeynay waa ku soo duldegay marka waxa la yiri inanka waxa caado u ahayd in uu subaxii baxo oo uu ugaar raadsado kaynta agagaarkeena inuu ugaar ka raadsado gadaasheeda ku taala waa kayn weynankii ka badatay oo qofka ay liqdo uu noqonayo sidii qof ay bad u qaaday oo waliba aanan soo noqonayn dadka agagaarka deganaayo dhan hadii la weydiiyay inanka asaaliibtiisa iyo la dhaqankiisa waxay sheegeen kulligooda isku raaceen in uu ahaa inan iska degan oo aanan hadal jecelayn inuu socdana badanaa jecel oo maaragtay keymaha iska warwareega dukaan yar oo alaabaha guriga lagu qurqurxiyana leh oo meel ku gata casarkii meelaha markay tahayna xoogaa ariye iyo lo uu aabihii leeyahay raaca nin noloshiisu iska basiid tahay maaragtay iska caadi tahay cidnana aan la diriirin nooca haydaarinku daari maayeeda ah waa la isku wada raacay taas agagaarkii oo dhan baa inankii laga baaray waa la waayay markii maalin la joogay oo uu inankii soo noqon waayay oo maalin labaad uu ku darsaday waliba ayay booliska bilaabeen inay baaraan oo waxa la yiri maadaama ay kayntu ahayd meeshii ugu dambeysay ee lagu arkay kaynta laga raadsho waxay wax baaraanba markii bil iyo laba ay ka soo wareegtay ayaa isla kayntii dhexdeeda laga soo helay inankii yoomeyda oo waliba bilaa madaxa reerkii inankoodi waa garteen bilaa madaxiisaba ha ahaadee laakiin dharkii buu qabay oo maalinkii la tagay qorigiina waa ag yaalay waa la iska gartay marka in door hadii la joogayna madaxiisa meel kale laga soo helay markii hore booliska inta inaan madaxa soo helin waxa ay sheegeen in inanka waxa ku dhacay ay tahay in bahalla duur jooga ay cuneen isagoo kayntiisa iska dhex dawaafaya kayntana waa lagu yaqaanaayo dhurwaaye iyo bahalla dad cun oo dhanba ka buuxa saa iyadoo ay u tahay ayaa madaxii la soo helay madaxiisi waxa laga dhex helay in xabadu ay ku taalo oo rasaas baa laga soo saaray marka waxa weeye bahallama cunina waa la dilay markiiba reerkii waa lagu soo kala fireeyay iyo dadkii agagaarka oo kulligood waxay wada noqdeen wada dambiilayaal iyo mid laga shakisan yahay waxa la soo ogaaday islaanta uu qabay in maalinka ay iyaduna maqnayd xagay ku maqnayd baa la yiri oo waxay tiraahday maalinkaas maalinkii ka horeeyay waynu isdirirnay aniguna waan xanaaqay bay tiriyo nadhaaf baan iriyo xaafadii hooyadii baan ku noqonayaa oo markaa waxay tiri bartaasaanba ka carraabay oo xaafadayadii baan aaday wax ay boolisku wax baarbaaraanba markii dambe ayay isla meeshii agagaarka inanka meydkiisa laga soo helay bay waxay ka soo heleen moobiladiisii muxuu la moobeel badan yahay lama yaqaan moobeeladii mid kamid ah ayaa u shaqeeyay waxay dhaheen baldi aynu ka baarbaarna bal inaanu wax un ka helno hadday moobeelkii fureenba waxaba ku jira boqolaal message oo kulligood ah waa ay kana kumee imaaday kayntii baan dhex taaganahay kumee mid soo waca iyo mid message soo dira oo qof walba leeyahay dee bartaad igu balamisay baan taaganahay kumee asaguna uu ku hayay sug haddaan soo socdaaye iyo dhowr saac kadib soo istaag waa la yaabay oo la yiri inanku ma shirkadu u shaqayn jiray see wax u jiraan waxa la dabagalay SMS-yadii u dambeysay oo uu diray iyo ciddii u dambeysay oo uu la hadlay maalinkii waa maalinkii la waayay waxay wadaantii soo jiidaanba booliskii waxa ay dadkii ku noqdeen dad magaalo kala jooga magaaladii baa looga daba tagay oo ninkii ugu dambeeyay oo uu la hadlay ayay daba istaageen inankaas oo uunan magaciisa xusnayn oo u bixinayno Saalax waxa uu ahaa inan ka shaqeeya meel elektrooniga oo noloshiisa u kala kacsan tahay oo heer magaalo jooga kaliya waxa la fahmi waayay waxa keenay tuulada Saalax waxay daba taagnaadaan boolisku waxay soo ogaadeen inuu Saalax laba kale oo saaxiib leeyahay oo aynan kala harin inan bajaajila ah iyo ku kale oo asaguna meel kale ka shaqeeya waxay dhaheen saddexdaba aynu isku soo qabanna iyagoo naga warhayn hay isku cadeeyaan ayagu si tartiib ay mid walbaba waxay ku soo qabteen waxaan loo dirsan waxyaabo kale yani dambi kale oo ay iyagu u sameeyeen kadib markay soo qabtaan bay waxay weydiiyaan maalinkaas horta xageed ku maqnayd adu mid walbaba wuu inkirayo wuxuu yiri ma aniga kayntaas weligeeyo ma maqal riyaba kuma maqal xitaa inkiraada cad markii ay la soo istaageen waxa ay dambi baarayaashii barta ku yaqiinsadeen inay nimankaanu dambiilayaal yihiin waa la soo qabtay oo mid walbaba warkiyo cad baa la hordhigay horta markii hore waxa laga bilaabay inankii ugu dambeeyay oo uu la hadlay Maxamuud wuuna cadaystay oo wuxuu yiri ninkii ana dilay laba saaxiibada ayaan ila dilay labadii kale awalka hore laga shakisnaana iyagina warkii baa la hordhigay iyaguna waa cadaysteen maxaad ku dishay baa la yiri sabab ana wuxuu yiri maalin fi amaanillah anay iyo gabar kale oo aan sheekaysano aynu iska xataraashayno maaragtay kayntaas aynu tagnay oo khayr aan u dal lahayn iska dareemaysaay oo meel iska fadhino wuxuu yiri aysan naga qasnayn oo aan iska sheekaysanayno baa ninkan oo halgaada dusha nooga soo dhacay oo qori wata istaaga buu yiri waxaad wadataan dhiga hadda waa wax walba buu yiri boorsooyinka tabaha wax walbo micna leh oo aad wadataan wad dhigaysaan wixii
subaxiiba wuxuu yiri markuu naga dhigtay inta naguma uunan deynay istaaga buu yiri sidii koolada isu qabsada annagoo baqayna buu yiri oo qoriga ka baqaynaanu tabtuu yiraahday sameynay sawirru naga qaaday uu alla og yahay hadii ay reerahayagii arkaan inay noo dhamaanayso anigana la idilay inantaasna reerkoodu ay barta ku dilayaan sawirradii markuu naga qaatay buu yiri buu dhaqaaqay asagoo si socdaan u yeerayo waxaan warwalaalow maxaad ka wadaa waxa adaa ogaan doona buu yiraahday inuu istaji dharkaaga xiro dhaqaaq markaasaan bariyay waxaan yiraahday buu yiri niyow boorsada aad iga qaadatay bal aqoonsiga iigu jira iyo inanta aqoonsigeeda iyo bal nooga soo saar ileen waa wax nolol maalmeedkeena ah maya buu yiri hadda waxaan idinkaga soo saaray ma jirto dib baynu ka wada hadlaynaa nambarkaagiisi nambarkaygiiba iga qortay buu yiri waa dhaqaaqay annagiina waan soo cararnay buu yiri anagoo la ilaahay baaba na badbaadiyay mar haddii nafteeda noo badbaaday wax walba oo kale way hagaagayaan maalinkii wuxuu yiri markaan xaafadayada ku soo noqonay annagoo murugaysan oo yaaban ayuu isoo wacay buu yiri anoo busaarad xaafadayda la dhex fadhiya ilaa waxba ma haye lacagtiina laga qaaday kaararkayga laga qaaday farta wax kuma haynin wuxuu yiri buu yiri warsoo garamaysi haa baan iraahday buu yiri wuxuu igu yiri buu yiri biri subax baad $1,000 adoo wada iigu keenaysaa bartii aan maalinka hore idinku furtay markaasana aan fagaagayo waxaan iraahday buu yiri warniyo xagee baan $1,000 ka keenaya skiinkayga yar baan iska ahay war waxa wuxuu yiri adaa lagu dhahaa aniga wax iiga gidhiisha male lacag baan kaaga fadhiyaa buu yiri kalahaada hore haddii kale laabaadan aqoonsiyo iyo kaarar iga helayn sawiradaadana adiga inantiibana khadkan soo dhigayaaba hadhow reerihiinii Facebook iyo idinka arkaan war haye baan iraahday buu yiri waan kuu keenayaa labada wiil ee aanu saaxiibada nahay baan u tagay buu yiri oo sheekadii oo dhan baan uga dhacay waxaan iri war saas ay u dhacday ninka maxaan ka sameynaa $1,000 ma haye haddaan wada fariisanay buu yiri waxaynu ku tashanay inaan ninka khaarijino subaxii baanu saddexdayadu isa soo raacnay bajaajtii baynu soo qaadanay bartii baanu nimaanay annagoo saddexa midkeen baa isqariyay aniguna gaarigii baan ka soo degay wuu isoo wacay wuxuu ii sheegay buu yiri inaan taag yar aan fuulo oo geed ku dul yaala aan lacagta dhigo geed kale oo dhanka ka xigana aan ka qaato aqoonsiyadeedii iyo aqoonsiyadii inanta iyo waraaqadaheedii tabtii baan sameeyay buu yiri lacagna meesha uma dhigina waraaqadaan u dhigayaan boorso ugu soo ridee ileen maba haye maskiin asagu busaarad la daala dhacay haddaad istiraahidid wax ka soo saar saasoo kale laga yaabaa inay kugu dhacdo tuugnaba ha noqon asalba ka soo tag wuxuu yiri midkeenii isqarinayay baa gaariga markiiba ka degay asagoonan la dareemin ileen waan iska garanaynaayo waxaan dareemaynaa buu yiri in ninkii uu meelahan taagan yahay oo adigu meelaha uu naga eegayay waan la is arkay meesha waa kayne kiibaa wuxuu yiri geed dabadii ku laabtay oo isqariyay anigu gaarigii baan ku soo noqday kii gaariga waday iyo anigii waxaan iska dhignay inaan tagnay markaan dhaqaaqnay buu yiri oo aan xogaa sii maqnayn buukeeyo geedo uu ku hoos dhuumanayay ka soo hoos baxay oo taagii uu koray boorsadii buu soo qaatay yarayd asagoo isla lacag baa kugu jirta markiibana kii saaxiibkay ahaa ee isqarinayay markii uu arkay ninkii buu isku sii daayay oo eryaday isagoo qori wata dee xabadaynaya kiina waa soo rogaal celiyay xabadihii oo asaguna waa furay rasaastoodii markay isqabsatay buu yiri oo ay kala gabadeen buuna soo wacay oo wuxuu yiri war soo kala firay ninkii waa soo baxay markiibana waan soo noqonay buu yiri annagoo intayaduba hubaysan waanu eryanay buu yiri xoogaa dhan baynu isxabadaynaynay asagoo markii dambe buu yiri asagoo sii humbulhumbulay aan madaxa kaga dhajiyay saas uu dhacay oo wuxuu yiri aan dareennay inaan ku dhufanay waanu isaga yaacnay gaarigayagii baan soo qaadanay haadaa wasalaam adaaba sheegaya haddiiba warkii la daba galay inankii wanaagsanaa oo reerkooda u joogay oo aabbihii ariga u raaci jiray oo dukaanku u furnaa waxa uuba noqdayba nin lamaanayaashan ma aragtay aadan garanayn sababta ay lamaanaha u yihiin iyo cidda ka dhigtay toona oo uu shaydaanku saddex ku yahay asagoo afareeya kayntu haba laga baqay ee waxa ay ahayd laakiin kayn aad caan uga ah in dadka noocaasi ay yimaadaan iyagoo laba isu wata iyagu ma ka baqaan moogtahay bahalle iyo inay wax dafaan toona shayaadiin kala soo hogaaminaysa labadii timaadaba bartaasuu ku edbin jiray lacagta iyo calaladay wataanba waa ka dhigtaa bartaasi ka baxaan mana daaye inta nambaradooda ka qaato ayuu mid walbaba gaar u wacaa soo dir weligiiba lacag barta ka guranayay tuugba ha ahaade laakiin dadku wax ka xadayay dad istaahila bay ahaayeen in wax laga xado oo la marjiyoon 500 lagu reebin khalad yaana la fahmin hadda oo dadka yaan hadda lagu dhaqaaqin inaba tuugnimadu wax saxsan ma aha diiniyan iyo akhlaaqiyanba aynu ku soo noqonay marka subaxdii uu inankaas gurigooda ka soo baxay waxa ay ahayd subaxdii uu ninka lacagta ka soo raadsaday waligii nin aamusan oo akhlaaq leh oo degan buu tuuladiisa ka ahaa haddana hawlahaas ku jiray oo dad buu kala celcelin jiray marka lagu leeyahay weligaa buuga jaldigiisa ama baalkiisa saraha ka xukumin waa nooca reerkiisii way yaabeen markii ay sheekada maqleen subcadii oo dhanna waa ka dhacday dadkii tuulada ama kaag baa la tusay maxay buuxaan waalidiin ilmahooda u bogbogsan oo moodo inuu yahay kii kaliya khayrka lahaa ee dhalinyarta ku jiray ku qanacsan oo kelmad laga sheegi jirin meeshuu istaago ama wadaadadu la fariistabana ka dhex amaana wiilkiisa laakiin inankiisu uu cagsiga yahay maalinta looga soo sheegana inankiisu waxa xun oo uu sameeyay ama uu sameyn jiray bana laga yaabay in wadaadka maskiinka ah ay bartaan naftu kaga haadaba naxdintuu noxo marka ilaahay dadka ha hagaajiyo inta ayuuna noogu ekaa muuqaalkeeni maanta fadlan like tii subscribe taba ha ka ilaawin waana ruwayda style oo dhammaantiin idin leh salaamo allah